maamulka Jubbaland ayaa saacadihii la soo dhaafay ciidamo badan oo ka tirsan kuwa daraawiishta Jubbaland geeyay duleedka degmada Beledxawo ee gobolka Gedo iyadoo kuwa kale halkaasi ay joogeen. ciidamada ayaa waxaa hogaaminaya sargaal lagu magacaabo Cabaas Ibraahim Gurey oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee Jubbaland, waxaana la sheegay in ciidanka la geeyay duleedka degmada Beledxawo ay wataan gaadiidka dagaalka noocyadiisa kala duwan. dadka ku sugan duleedka degmada Beledxawo ayaa sheegaya in ay markaasi arkeen ciidamo badan oo wata gaadiidka dagaalka isla markaana ay soo gaaray deegaanka iyagoo sidoo kalena sameysay fariisimo cusub. Cabaas Ibraahim Gurey oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Jubbaland ee gaaray duleedka degmada Beledxawo ee gobolka Gedo ay yihiin kuwa aad u diyaarsan. isagoo sii hadlay Cabaas Ibraahim Gurey ayaa waxa uu wax laga xumaado ku tilmaamay in maanta ay isku yihiin ciidankii dowladda Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland, kuwaas oo uu sheegay in la doonayay in ay dagaal ku qaadaan Al-Shabaab. si kastaba ahaatee degmada Beledxawo ee gobolka Gedo ayaa waxaa ku wada sugan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa daraawiishta maamulka Jubbaland, iyaguna dhowaan halkaasi uu ku dhex maray dagaal khasaare geystay.